وهاك داود مeel baa joogtaan waxaad leenahay kulanti wacan oo wanaagsan waxaan booqan doonaa inan yar oo madaxa biyo ay ka galeen waliba waxaan ula sheegay in ku dhow 8 sanadood in uu dhulyaal yahay waxaan eegi doonaa xaaladda uu ku nool yahay Anas dabcan sida aan filayo ama la ii sheegay dhowr wadan ayaa la geeyay sida Kenya iyo Ethiopia walina waxaa la dalbanayaa in caafimaad dibadda loo qaado sababtoo ah wadamadii la geeyay xaaladiisa waa lagu soo dabiibi waayay haddaba sidee ayay tahay xaaladiisa وهاجاك داود الملبو joogtaan waxaad leenahay kulanti suuban waxaan maanta booqasho ugu tagnay Anasyari oo in ka badan 8 sano halkan jiifo waalidkii waxay noo sheegeen in madaxa ay biyo kaga jiraan waliba dalalka Ethiopia iyo sidoo kale Kenya la geeyay isla markaana xaaladiisa caafimaad wax looga qaban waayay muuqaalkiisa sida aad daawanaysaan waa wiilka yar halka jiifo madaxiisana inta ayuu eebla ekeysiyay waxaan u baahan yahay gurmad bilaadanimo iyadoo la isgarabsado oo la iskaashado ayuuna markaa wax ku noqon kara isla markaana caafimaad dibadda uu ku heli doona waxaan la hadli doono wax ka weydiin doona xaaladiisa hooyadii iyo aabihii oo labaduba nala jooga isla markaana inta gacanta ku hayay isla markaana xanaaninay waxa sidoo kale noo sheegay in sharoobo kaliya laga helo suuqa bakaaraha mararka qaar loo iibiyo marka xaaladiisa markii halka marayso waa dareemi kartaan waxaan keenay Ethiopia hadana waxaan keenay Kenya waxba oga ma qaban karnay dhaheen dalka Hindiya loo sheegay in looga qaban karo waatay markii aad geyseen xagga aad tagteen maxay idin ku yiraahdeen marka dhaqaatiirtu baa maray neerow qaleen biyo ka shabeen andar biyo waa ku soo noqdeen waxay warqadan waxaan ka haysanaa isbitaal Madiina wax kama qaban karnay dhaheen warqadan ka haysanaa passport waa haysanaa tabar kale loo waayay oo lagu qaado maxay idin sheegeen marka waxa ay ku yiraahdeen biyo uga jiray madaxa biyo uga jiray waata meelo oo idin tilmaameen oo waxba looga qaban karay Hindiya waxay ka qaban kartaa dhaheen waata wali ma isku dayday marka Hindiya ka soo baxay isku dayo maxaa xaaladda tabar xageeda waata shaqaalihii uu ku bixiyay weyn waata aad umad Soomaaliya ku daawanaysa حد كعدسان هذا ما دوش يجري. في إسلام في كل مدان دكتور يقول راديان وحي تبارك. عافمد وباهي إلهي لقاه العبد مركوان. الحمد لله. أنا وأنا كل هدي عن أود ذا حيس ما حلي ذا مش ما مجيء ما قاعد معي. تلك جوديسنا وحوله قبل كرنا استال المدينة كهاي وحن كهينا استال دكفير استال كجبل إيران يروي وكهينا. إن أنا أفريقيا حلوة بكرين كاسة نوع عدينا وحي يوم وهنا وحي كجرا فيلو اللي هني كان ده أنت ساعة سؤال حتى عدد ولا أهل يوالد يوان ونودي معه أنا وأفضل من جسك الرحلة الحمد لله عندي حق عاف ما نجا عاون يسوع إسلامه إلهي بركة يا الله مروب ونعتبر وين عدل إلهي بركة لكن وحنا نجا نجوبا يوم نقدبا يوم عندنا رقب سنة سوا عاف ما كنكاس إلهي حق سال الله هنا هذا عدم لو أن دوني نهم جرتو طبعا قاتلت مركز وتكتين ميزان بيصير من عيش الان قياس مركز كيلودي سمقيد كل شيء والله اني بقول iyo 70 iyo wax maray igu sheegan miisaaniyad aan ima sheegan cabri sheegan wareeg ah saaraan si mitir kan caadiga wax lagu cabiro wareeg ay saari jireen sax mitir iyo 70 iyo xogaa maray ku sheegan mitir iyo 80 iyo 3 marba inta wuxuu ku sidiray hada mudana ma saarin baano sax muddo ma saaro laakiin wax kiilaad hada ma jooshi wala ma xus ilaadku waxaan xusuusanaa in ilmaha miisaankiisa wax lagu saari jiray ana idhi jireen qaad markaan ana fuula kaligeed dhulkaan dhigana miisaankayga halkaas markaan la fuulo miisaanka la sheegaan anigu miisaankiisa intuu yahay ya qaybin karo madax meel guri lagu xiraa malaha wala miisaan ahaan wax nambaraa oo idin kala soo xiriiro ayaan ka codsanaa inaad noo sheegto intaas kadib anigoo ka socdo radio maanta waxaan galabta go'aansanay in sharoobada bakaara laga doono laba waqti oo kamid ah aan eegno ilaahina waxaan ka rajeynayaa in caafimaad taam ah wiilkeena uu siiyo soomaalina waxaan leeyahay haddii la isgargaaro wax bay noqonaysaa isgargaarka iyo gurmadka sanna iga guddoon marka caafimaad taam insha allah nambara la idinkala soo xiriiri karo la idinka soo wici karo oo qofkii wiilkan
rabto inay caawiso idinka heli karto lambarada lambarka hooyada qorayna ha kana hooyada la mar raba id ag fadhisan inaan wareega laga qaado waa iska orod badan lambarka maamul sheeg furaha 7 48 53 shan wuxuu u baahan yahay Anas Yare inagoo garabka isqabsano isgargaarno waliba waxa uu Anas aad iyo aad ugu baahan yahay inagu garab istaagno qof walba wixii uu awoodo uu bixiyo loola qof walba wixii uu awoodo uu bixiyo waxa dhici karta Anas inuu helo caafimaad dibadda insha Allah wana rajaynaa inuu caafimaad dibadda heli doono isla markaana uu asaagii daba caarir doono lana hana qaadi doono insha Allah